inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugu horeyn waxaan jecelahay anoo ku hadlayo magacayga iyo kan golaha guud ee culimada Soomaaliyeed aan iraado ilaahay ha u naxariisto jannada firdoosna Allah ha geeyo ikraan tahliil inaan ahalkeedii oo hooyadeed iyo aabaheed ugu horeeyaan aba tahliil iyo hooyo qaali iyo dhamaan walaalaheed qaraabadeedii intii ay shaqada ku wada martay isku barteen ay ku saaxibeen intii waxbarashada ku saaxibeen intii dhamaan ummadda Soomaaliyeed intii garanaysa iyo intaan garanay iyo dhamaan intii la xawsanaysan inay iraado sabr iyo iimaan Allah naga siiyo ikraan waa arin dhacdin oo runtii qulubta shacabka Soomaaliyeed dhamaantood muruga weyn ku ah naxtina ku ah waxaan leenahay ikraan Allah naxariisto sabr iyo iimaan Allah naga siiyo waxaan kaloo rabaa inaan halkaan fariin aan uga diro dawladda Soomaaliya fariin aan u diro ehelada ikraan waxaan ku hormarayaa ehelada ikraan waxay heeday gabar Soomaaliyeed oo shaqaynaysa qaranka Soomaaliya gacanka gardaran ayay ku baxday sida la sheegay cid kastay tahay waxaan rabnaa marka inaysan naqanin gabartaas aan qiimaheedii iyo sharafkeedii aan meel looga dhicin oo laga dhigin gabar oo qabiila oo qoysa oo gaar ah waa gabar Soomaaliyeed qaran Soomaali u shaqaynaysa dadka Soomaaliyeedna ay kulligeed ka wada tiroonanayaan dhibaatadana ay la wadaagayaan ahalkeeda mustawahaas ay joogtay inaan laga hoos marin oo aan gabadha meel looga dhicin ahalkeeda ayaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee la sheegay qaraab ahaan amba qoys ahaan in loo qabsadaan diinteena islaamkana waa ku xaraan curfiga Soomaaliyeed wax ku fiican ma ahin qof dimbi oo galo qof qaadaysa ma jirto waa dad abri ah waa dad ikraan oo kale xuquuqda ay leedahay leh waxa cusahaya in si degdeg loo sii daayo dhibaatada aan loo geysan arinta oo ikraan aan laga dhigin arin qoys aan laga dhigin sida waxaan oo qof uu aara waa ficil xun waa ficil jaahili ah واتي نبي يقول عليه الصلاة والسلام جاهلية حلقة دعوها فإنها ممتنة تاس ما أهن تيفي عند ما أهن تاس وحال لها مركز دت كاسي سيد دق هلو سيد دايو عندك عن تكو هيسا حسيد ديسو يضون أن ربعين الدرنسيو قف كمسلم كقف كالدلاء قف مسلم هديل الدلو حقوق أولي هاي سد حقيب واي حقنا وحا إسكالا الله وأدون كيسي للدلي حقنا وحا إسكالا قف كالدلي أو نفتي سلا قوي حقنا وحا إسكالا قرابة كان الله قف مارتي أو توبة يوحوبة هاي اعتراف يتوبة إن إله الله لابتو أو تحت المشيئة دو دون كو عفينا دو دوننه أو كو عقابايو هلك أو مارتي أو حق أو قرابة نه أم بدي على كلاسية أم عفي سيسي استثان أم بالله قصاصا حق الضون كالدلني محكمة ولا ليه قف كدي المال قيامة صدرات قف مسلمة كسعد لو دلي أورجهينو إن إله نحرسي سسيو أو ما خير أي جوكتو أذو قف كاس شهيد وعيه هؤلاء نرتجين قف كلا مسلمة هديلنا قف مسلمة أول دلو وحكوين تهي إلى أكتيسا كعبد أول دميو الدنيا ما تر أول زوليو ما كساس تراد هذا قفتي مسلمة دلا كسعد ودلا دينتين وعاد وجود حتى توبة ملي مثلا مالها لسوق الأفق علماء حبر الأمة حبر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس وحوليه حتى قف كاس توبة ملي لكن جمهور العلماء وحليه التوبة أوليه أو توبة وأفرنتها سادرات إلهي نحو جودنا يا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نبي وحور حتى سوت كينا يو حدي لو أن على سماواتي وأهل الأرض اشتركوا على دم امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا على النار ولا يبالي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدي ذاتك سماذا أنت جوكتو أو مخلوق أراد أنت جوك تقف مسلم أجر درة يدل لهاين الشركة كون قال هاين لما تود إله النار بوكوك دادي لهاين ما نقابي إليه بحي لي قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا نبي يقول ملك عليه الصلاة والسلام مؤمن كأول الدلو الدنيا لا الأزوش إلى أكتي سوا كوينتي قفك مسلم كان قف سعد قفك ودلان ذاتك ما تسأسود دل أيو لمده من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إخوة العزاء وحان لا يا مركا ذاتك أبريادة مارتي هو لو قبطي أما لو سوق فاشي سيدا الشيء أو السوشيال ميديا هي ما برها برشيد أنكو أركوه هينو إكران لو سوق بصدي قبيل نمر لو قبصدي هلا سيدا يو حقوق دودا يصرف كودا نيام يلو قدعين
dadka ikraamna waxaa leena sabar iyo imaan alla idin siiyo waxaan rabaa inaa baaq halkan u diro markaleeto dowladda Soomaaliya mas'uuliyad ayaa saaran saan ognaha kulligayna oo dastuuri ah diini ah waajib ah oo ah ilaalinta dadka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda sharafkooda cirdigooda waxaan rabnaa in dowladda Soomaaliya cadayn waafi ah lagu kalsoonaa karo in la siiyo ehelada ikraan oo hadda aan leeyahay kaas waa dad Soomaali dhamaantood aan leeyahay waa in la siiyaa cadayn cad waa in cadaalad ay heshaa ikraam ahalka ikraam waa inuu cadaalad helaa dowladda madaxweynaha wasaaraha waxaan leeyahay cid kasta oo lagu tuhmayo kiiska ikraam cid kasta oo shaqo ku leh waa in cadaaladda ay hortagaan cadaaladana la horgeeyaa mas'uuliyadda dowladda taas baan leeyahay hay'adaha amniga taas baan leeyahay madaxda qaranka taas baan leeyahay cadaaladda dalka deeqda dadka Soomaaliya yaan cadaalad baadidaynu waa cadaalad dantaynu noo cadaalad ay ku jirtaa waa xuquuq islaami ah waa xuquuq insaani ah waa xuquuq oo maartay dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin cadaalad inay helaan dowladda ayaan waxaan ka rabnaa in kiiskaas laga cadaalad falo si waadixa oo si ka shamsi ah oo maalin ah baaritaanka iyo gungaaridda in laga dhigo waa inaan qof aan shaqo ku lahayn aan lagu dulmin qofkii shaqada ku lahayn waa inuu cadaalad dhidhimiyaa martaba kasta iyo mas'uuliyad kasta oo leeyahay qofka sharciga ayaa ka sareeya taas ayaan leeyahay anigu ka culum ahaan waxa la rooraayo oo meelaha dhan wareegaya social media kulli waxaan leenahay waxaan aragnaa fitnada ya arinta laga dhigin arin fitana oo dadka Soomaaliyeed dhibaato ku noqda oo diinta islaamka dhibaato ku ah oo cali ilaahay ka dhalato yayna naqanina lena mas'uuliyadda marka dowladda marka waxaan ugu baaqaynaa dacwo Soomaaliyeedna dacwo Madiina waxaa la ka rabaa arintaasi si dhab baaris xaqiiqo cadaalad ku saleysan baaris xaqiiqo dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan in ka codsahaynaa madaxda dalka tihiin waa maasantihiin Allah idin waafajiyan ilaahay markale sawir iyo imaan Allah naga siiyo ikraan Allahna u naxariisto dhamaan intii ummadda Soomaaliyeed ka geeriyootay walaasheen ikraan ay kamid tahay jannatu firdaws Allah geeyo.